ku dhacay jacayl gabar dalka Faransiiska u dhalatay oo 18 jir ahayd kadib markii ay ka soo wareegtay 75 sano ayuu doonayay inuu jacaylkiisa mar kale dib u raadiyo waa markii uu gaaray 97 sano waxa uu ka helay guri dadka waayeelada ah lagu xanaaneeyo Robinson waxa uu jiray 24 sano waxa uu ka shaqeynayay ciidanka Mareykanka xilliga ayaa waxa uu caashaqay gabar Faransiis ah oo la yiraahdo Tonian Chinaya waxay isku barteen magaalo yar oo ku taala waqooyiga bari ee Faransiiska sanadkii 1944 halkaasi oo hawlo shaqo u joogay iyo ka qaybgalka dagaalkii labaad ee adduunka waa sida ay qortay jariirada Daily Mail sheekada jacaylka ayaa bilaabatay xilli uu Robins raadinayay qof dharka u dhaqa gabadhan hooyadeed ayaa u ogolaatay inay caawiso si dhaqso ah ayuu jacayl ugu qaaday oo aragtidii koowaadba uu ka helay laakiin 2 bilood kadib ayaa Robins waxa uu soo baxay shaqo iyo inuu ka qayb galo dagaalka waxa uu yiri waxaan u sheegay inaan u soo noqon doono laakiin ma aanan filanaynin inay sidaan dhacayso oo muddadan aan kala maqnaan doono Tonian dhankeeda waxa ay tiri xilliga markii uu gaariga raacayay aad baan u ooyay aadna waan u murugooday Ronis marnaba ma aanu quusan sawirka ay xilliga isla galeen ayuu haystay waxa uu tusay sawirka suxufiyiin Faransiis ah oo la soo xiriiray oo ka doonayay waraysi maadaama uu ka mid ahaa dagaalyahanadii hore ee Faransiiska ka soo dagaalamay markii uu la kulmay ayuu u sheegay inuu doonayo inuu Faransiiska dib ugu laabto maadaama uu doonayo inuu raadiyo qoyska jacaylkiisa iyo xaalkeeda halka uu ku dambeeyay suxufiyiintan ayaa garab siiyay oo qoyskii la raadiyay waxa ay ka heleen guri dadka waayeelada ah lagu xanaaneeyo oo 27 mayl u jira goobtii ay isku barteen markoodii koobaad waxayna isku dayeen inay isku keenaan labadooda mid walba uu tarmay oo caruur ayaa ka farcantay laakiin nasiibku waxa uu isku keenay iyadoo mid walba lamaanihiisii uu ka geeriyooday halkaas ayayna mar labaad ku kulmeen 75 sano kadib Cabdiweli Axmed Qorane Goobjoog TV barnaamijka subax wanaagsan